Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan. Maanta waxaan isla dhisi doonaa website basic ah anagoo ku dhisi doona HTML iyo CSS. Website-kan waa website iska basic aadna u yar, laakiin aad ku baran doonto waxyaabo badan oo markaas HTML iyo CSS ka caawin doona haddii aad ku dhex jirtid. Meesha horeysa waxa aan ku haysanaa waa logo. Intana waxaa noo yaala listigeeni. Inta xaggaana waxaa noo yaala sidoo kale text iyo laba button. Intana image ayaa noo yaala. Sidoo kale website-kan waa mid responsive ah. Responsive micnaheedana waxa waaye waa in website-kaagii laga arki karo shaashadaha kala duwan, ha noqdo mobile, iPad ama laptop. Markii website-kaaga laga soo galo in dhammaan laga arki karo. Sababtoo amaanta inta badan dadku waxay isticmaalaan waa mobile. Marka website aad dhistay sidee mobile ugu soo bixi karaa, ama qofka haddii markii mobile uu ka raadinayo kale sidee mobile looga arki karaa. Marka taasna waa muhiim inaad responsive ahaan taqaanid markii aad website dhisaysid. Marka taasna sida loo dhiso waan isla arki doonaa. Haddii aan isla aragno markii mobile laga soo geliyo website-keena ama la yareeyo, waxaa arkaysa hadda markii mobile ahaan laga soo geliyo in website-keena uu qaabkan u eg yahay sida tan. Markii menu aan ku dhufanay in listigeen inta ay nagu soo baxdo. Inta badan menu responsive markii la sameynayana, menu responsive-na waa markii icon-kan lagu dhufto waxaa arkaysa listigeen inuu xaggaas nooga soo baxay. Inta badan markii taas la sameynayo waxaa la isticmaalaa waa JavaScript. Sababta JavaScript ayaa waxay u qabataa website-ka in markii meel lagu dhufto wax soo baxaan, ama markii meel la taabto button oo kale wax soo boodaan. JavaScript ahaan ayaa website-ka u qabata. Laakiin anaga maanta waxa aan ku baran doonaa website-kan si anagoo JavaScript aan u isticmaalin menu responsive aan u sameyn karno, kaliya anagoo isticmaalina HTML iyo CSS. taasna waa aan ku baran doonaa oo waxay ku noqon doontaa insha Allah wax cusub, ama markaas wax haddii aad hore u garanin aad ka faa'iidi doonto insha Allah. Marka waxaan rajeynayaa in website-kan maanta uu ku noqon doono mid aad iyo aad wax uga faa'iidid. Haddaba aan isla bilowno project-iga. Okay, marka horeysa waxaan soo furtay VS Code-kaygii. Hadduu adiga kugu jiro waa soo download gareysan kartaa Google inta kaga taagtibna xaggaas aad ka soo download gareysan kartaa. Marka meeshaan kaliya waxaan ku haystaa image, folder igu jira image-keedii. Marka horeysa haddaan furno page.html index.html, page-kana aan furno style.css. Okay. meeshaan title-ka waa title-ka haddaan ku qorano. waxaad doontaa ku qoran kartaa title-ka, laakiin waa inuu ahaadaa wixii markaas website ku saabsan. haddaan naga iskaga qorno website kadibna aan linkiga ku xiro website-ka, style-ka waxaan ka wadaa yacni style-ka page-ka CSS-ka haddaan ku xiro style.css. okay, marka haddii aan isla aragno waxa aan sameyn doono, meeshaan u horeyso waxaan ku haysanaa logo. Intana waxaa noo yaala listigeeni. intana text, xaggaana waxaa noo yaala sidoo kale image. Marka laba qayb aan kala qaadanaa. marka horeyso qaybtaan ku bilaabeynaa, qaybtaan aan sameynaynaa, kadibna qaybtaan aan u gudbaynaa. aan ku bilaabo container, haddaan sameysto container. containerkaan dhex geliya nav. waxa horeeya aan sameynayna waxa waaye marka logo ayaan leenahay. logada marka waxaan dhex gelinaa h2 waxaan leenahay marka UR logo. UR logadan marka waxaa arkaysaa UR logo meeshan qaybtan UR-ka ah in ay tahay madow, qaybtan kale logadan inay tahay cagaar, color yani cagaar ah. marka si taas noogu fududaato span ayaan dhex gelinaynaa. span ayaan leenahay, kadibna waxaan dhex gelinaa logada oo hadhow waxaan ku dhex sameynaynaa style-ka si ay noogu soo fududaato. okay, logada marka waxaa ku xiga waxaan ku xijinaynaa input. sababta input-kan u sameynayna waxa waaye type-kiisa uu yahay checkbox. haddii hadda aan website-keena ku tuso,
يعني markii aan responsive ka dhigano website-keena ama mataqaana aan yareynayno qayb responsive ah waxaan isticmaalnaa waxa waaye kaliya waxaan isticmaalnaa HTML iyo CSS wax JavaScript ma isticmaali doona marka si taas u sameyno ayaa waxaan isticmaalnaa main yahan ayaa waxaan u isticmaalnaa si checkbox ahaan ah haddii hadda aad fahmin dhib ma laha laakiin markii aan sameeyo ayaad si fiican u fahmi doontaa insha Allah okay glass la dhaho check okay id sidoo kale waxaan sameynayaa la dhaho toggle okay intaas kadibna waxaan ku xijinaa label intaan waxaan gelinayaa toggle ayaan gelinayaa kadibna labelka ayaan waxaan dhex dhigaynaa iconka waxaan dhex dhigaynaa iconka menu-ha marka iconkaas aan u helno haddaan google ku qorno font awesome cdn kadibna linkiga aan soo qaadano okay linkiga ayaan inta ku isgareynayaa kadibna haddaan soo qaadano iconka haddaad ku qortid font awesome icon haddaadna u bedeshid kadibna aan ku qorno menu haddaan ku qorno menu xogaa khadka iska yar culus miya okay marka waa kana menu-han ayaan la soo degaynaa so intaan marka dhex dhigaya intaan ku base gareynaya sidoo kale glass ayaan u sameynayaa aan hadhow ku style gareyno waxaan leeyahay menu ayaan u sameynayaa glass okay haddii hadda aan isla aragno waxaan sameynaynaa marka haddaan ku furo open with live server hadduu adigu kugu jiro meeshaan ayaad tegi kartaa kadibna waxaad ku qori kartaa live server kadibna xaggaas ayaad kala soo degi kartaa okay waa kana okay hadhow si yani markaan responsive ahaan markaan sameynaa ayaan si fiican kugu sii fahansiin doonaa sababtan u isticmaalay checkbox-kan iyo menu-han sababta menu-han ayaa rabaa si checkbox ahaan inaan u isticmaalno wax JavaScript ma isticmaali doona marka saasaan u isticmaalayaa waxa ku xiga aan haysanayno waxa waa ul-ka marka haddaan u bixiyay glass la dhaho nav link list marka waxaan dhex gelinayaa door ah koobaad haddaan dhaho home kadibna aan ilaa dhowr xaba aan save gareeyo okay kan ku xigana aan dhaho surface uma okay si marka okay home surface about us contact ku xigana waxaan ka dhiganaa about us okay kan xigana waxaan leenahay contact oo contact ayaan sameysanaa page ah kan ku xigana waxaan kusoo dhiganaa log in okay marka laakiin kan waxaan u sameynaynaa glass sababtoo ah si kale u style gareysan yahay marka glass la dhaho active ayaan u sameynaynaa ama hadhow kusii style gareyno sababtaa inuu ka duwan yahay arkaysa oo kan uu wato xoogaa border iyo maaragtay box uu ku dhex jiro okay marka haddaan intaan hadda style gareyno marka hores waxaan sameynaynaa calaamadaas sababta u sameynaya waxa weeye faciated ayaa la dhahaa sababtoo ah calaamadan waxay kaa saacideynaysaa waxa waaye waa dhammaan ayay ka dhigan tahay oo page-ko dhan ah oo hadda haddii page-keena saas hadduu yahay haddii hadda margin iyo padding haddaan ku daro yani contact-ida dhanba ayuu website-ka ayuu qabsanayaa marka haddaan hadda dhaho margin ka dhigo 0 oo page-ko dhan bay ka dhigan tahay marka oo wixii page-ka markii dhammaan aad wada sameynaysid aad calaamada isticmaali kartaa okay arkaysa in contactiga ay ku dhigtay ama mataqaanaa listigii iyo wixii loogadii aan haysanay inay derbiga ku dhigeen okay haddaan ku xijino containerkeena waa yara dejinayaa si waqtiga safe noogu noqdo containerkeena marka haddaan dhano max width cabirka ugu yar uu lahaan karo haddaan dhano
sidoo kale haddaan ku darno margin, haddaan dhahno margin wuxuu lahaanayaa 0 and 1 ram, oo margin waxaan ku darinaa 0 ah, top and bottom iyo maaragtay left and right 1 ram ah. Okay, maybe containerka si khalad aan u qoray miya? Yes, container waa meeshaan saas u dhaqaaqo. Yes, waa kana. sidoo kale haddaan dhahno padding, aan ku daro padding 1 ram ah iyo 0. Okay, padding intaas aan ku darno. waxaan ku xijinayaa marka nav oo ah meesha ay ku dhex jiraan listiga dhammaantood. haddaan dhaho display flexbox ba marka isticmaalanaa display flex ayaan leeyahay. sidoo kale waxaan leeyahay align items center. sidoo kale waxaan isticmaalayaa justify content, waxaan leeyahay space between, oo space ha u dhexeeyo. hadda contact waxaa arkaysa inay kala durkeen labadan. marka meesha waan ka saaraynaa hadda, oo hadhow markii response aan ku sameynana ayaan soo saaraynaa. marka si labadaas aan u cunno waxaan leenahay check and menu displaygooda hadda waxaan ka dhigaynaa none, mid aan la arkin hadda. Okay, meesha way ka baxeen oo kaliya waxaan hadda haystanaa loogadan iyo listigeena. Okay, marka nav link ayaan ku xijinayaa. nav link oo meesha ku dhex jireen. kadib haddaan dhaho display asna waxaa ka dhigtaa flex, oo linkii ha noqdaan kuwa ayagana isla jiifa. haddaan kusii xijiyo sidoo kale nav link listigay ku dhex jiraan, oo wax hadda dul saaran haddaan ka qaadno list style oo kale, waxaan leenahay none. list styleka aan ka qaadanaa, oo si aan loo arkin list styleka. list stylekana waa dhibcahaas waaye oo haystay hadda meesha ka qaadmay. sidoo kale waxaan ku darinaa margin ayaan ku darinaa. waxaan leenahay 1 ram and 2 ram, oo margin waxaan ku darnay 1 ram at top and bottom iyo 2 ram at left. iyo maaragtay ram micnaheeda inta badan pixel iyo ram waxay ku kala duwan yihiin. waxa waaye yani halkii ram ayaa wuxuu yahay 16 pixel. marka ramka ayaa ka awood badan pixelka. ramkana yara fiican inta badan, marka saas aan isticmaalayaa ram aan pixel hadda u isticmaalay, laakiin pixel aan isticmaali doonaa. waxaa kaloo aan haysanana waxa waaye haddaan hadda listigeena linkii ay ku dhex jiraan aan u tagno. taa linkii bay ku dhex jireen. listiga waxaa ujeeda yani linki inay kusii dhex jiraan. marka linkikaasaan u taginaa haddana. nav link ayaan leeyahay, kadibna waxaan leeyahay listigay kusii dhex jireen. waxa calaamadan hoose ayaan ka qaadanaa text duration ayaan leenahay none. sidoo kale font size-koodana waxaan ka dhiganaa 18 pixels si xooga ay weynaadaan. color waxaan ku daranaa sidoo kale ah madow 19 ya color madow ah waaye. okay, hadda si qurux badan ay noqday. loogadana aan u tagno. logo haddaan dhahno font size-ka waxaad ka dhigtaa 22 pixel. sidoo kale font weight haddaan ku darno 500 ah 500. okay, ina marka isla ahaadaan baa la rabaa loogadan iyo tan. and isleeyihiin soma xoogaa hadda. okay, haddaan usii tagno marka loogada waxay haysataa span. logo waxaan leenahay span ku dhex jira. waxaan leenahay marka colorka waxaa ka dhigtaa color green ah. color green aan ku isticmaalaynaa. yeah, okay. intaan I think inaan hadda kana noo sii haray active aan noo sii haray iconkaas u dambeeya. active ayaan leeyahay maadaama active glass la dhaho aan usoo sameynay. active glass la dhaho ayaan usoo sameynay. waa kana waxaan leeyahay padding ku dar ah 5 pixel and 15 pixel. top and bottom ah 5 pixel and 50 pixel ah. and left and right waxaa hadda isma bedelin. haddaan dhahno border
1 pixel solid ah ku darno color ah ebi color waxaa haystaa madow ah color madow haystaa marka color waxaan ku daranaa 1919 kan ah okay sidoo kale haddaan dhana border radiuska waxaa ka dhigtaa 20 pixel si hareeraha mataqaana uga soo noqdo saas camal okay haddana kanna isku mid ayay yihiin okay intaa qaybtan koobaad ayaan kaga baxaynaa oo wax hadda noo dhiman ma ujeedo hadda yani isku mid waaye oo dhammaan hadda waan sameynay intaan koobaad daqiiq ayaan kala turnay waxa ku xiga aan haysanaynaa intaan haddaan iska sii lingeeyo okay waxaan ku xiga haysanaynaa waxa waaye marka haddaan dhaho marka waxaan ku xirayaa hadda ayaan isaga xirayaa meeshaas header ayaan leeyahay headerka waxaan sii dhex gelinayaa main galaas la dhaho kadibna waxaan leeyahay call n marka waxaan leeyahay call sababtoo ah waxaan haysanayna waxa waaye text iyo image marka waxaan u kala sameynayaa laba div ayaan kala sameynayaa mid waxaan ugu wacay call midna call n call 1 okay headerkeena haddaan soo qabano header widthkiisa haddaan ka dhigno 100% height haddaan ku darno ah 86 view height background baan ku darayaa backgroundka marka waa linear waaye waa kalaro isku dhex jiro waaye oo hal kalar ma aha marka kalaradan isku dhex jira qaybtan waxay u eg tahay qayb yani triangle ah qaybtan kalena marka waa transparent hadda yani qaybtan transparent araan ku sameynay oo hadda markaan isla sameyna arkayna marka qaybtan iyo qaybtan ayaan u kala qaadaynaa marka waxaan leenahay 120 degree oo tii xisaabta waaya 120 degree waan leenahay kadib ayaan waxaan leenahay color waxaan ku daranaa marka ah color waxaan ku daranaa 00244 color taas ah marka waxaan leenahay 0% marka color kale aan ku daranaa asna ah isla colorkan ah oo waxaan leenahay asna 2244 waxaan ka dhignaa marka 50% hadda isla eegno waxaada noo soo bixin okay marka qaybtan kale waxaan leenahay transparent ayaan leenahay dun waxaan leenahay 50% kadib waxaa arkaysaa yani qaybtan waxaan ka dhignay yani qaybtan kale oo 50% waxaan ka dhignay transparent mid yani backgroundkeeda aan la arkayn haddii sidoo kale waxaan ku daranaa marka image baan ku daranaa imageka dan hadda image oo back ah okay haddaan isla aragna marka image saasaan ku darnay okay imageka si loo arko okay imageka waxay kala duwan yihiin I think okay aan dhahnaba si dhamaystirna harta background position aan leenahay center sidoo kale waxaan ku odhanaa background size aan leenahay cover okay marka hadda ayaan ku daranaa textigeeni
col1 wuxuu haystaa text h1 ku qoran tahay. textigan ayaan soo koobinaya marka si waqtiga nagu save garamsan, laakiin adiga waxa doontaa iskaga qoran kartaa. Okay, sidoo kale lorem ayaan leeyahay. lorem waa text fake waaye oo ku save garaysan VS Code-ka iyo meelo badanba. marka waa text fake inta badan lagu isticmaalo markii aad wax ku barbarinaysid. button aan leeyahay, laba button u baahanahay. koowaad waxaan leeyahay btn isla kan haddaan koobiyeeyo asna aan dhaho kana marka primary aan bixi. okay, koowaad waxaan ugu qoran marka sign up, kan kalena surface. okay, labadan button waaye. okay, meeshan kalena waxaan ku haysanaa image-keeni. haddaan soo gelno marka image source image waxaan haysanaynaa marka image-kan aan soo gelin away image-kan image-kaas ayaan kusoo dhex tuurinaa meesha. okay, hadda isku dhexdhexsan yahay. laakiin waa habaynaynaa. waxaan leeyahay main oo ah classkan oo labadaba ka wada dhexeeya. mainkan marka labadaba wuu dhexeeya oo wuxuu ku dhex jiraa col1 kan, ku dhex jiraa col-kan, ku dhex jiraa col1 kan, ku dhex jiraa. marka kana waxaan leenahay display waxaa ka dhigtaa flex, bas baan isticmaalnaa. display waxaa ka dhigtaa flex, kuwa isbarbar yaala. align itemska waxaa ka dhigtaa center. justify content-iga waxaad ka dhigtaa content-iga space around, geesaha ka geli space around. sidoo kale width waxaan ku darinaa 80% oo 80% width ah. sidoo kale waxaan leenahay padding top 5 ram. hadda sidaas ayuu noqday. okay, waxaa ku sii xijinaynaa marka aan hagaajino call-ka. col1 waxaan leenahay flex spaces oo ah intuu ku fadhinayo haddaan dhahno 50% oo 50% camal ayuu qaata. marka kan hadduu 50% qaato kana 50%. okay, let's say col1 h1 ku dhex jira. hadda h1 kali waan dhihi karaa oo sababta h1 kali aan isla, laakiin haddii wax badan aan qorayso hadhow oo kale waxaa laga yahay h1 oo kale inaad isticmaasho dhowr jeer. marka si taas aad u kala xakamaysid h1-ka iyo oo dhowrka xaba isticmaalaysa ama h2-ga, waxaa fiicana mar walba galaaska uu la socdo aad kusii dartid. saasana fiican. haddaan dhaho font size ka dhigtaa pixel, aad uu yaro weynaaday. sidoo kale color ku dar cadaan ah. sidoo kale haddaan dhahno padding bottom 10 pixel si oo uga degto hoos. okay, hadda isku mid waaye. sidoo kale paragraph-kan haddaan asna waxayno dhana col1 paragraph ku dhex jira. haddaan dhahno font size-ka waxaa ka dhigtaa isaga 10 pixel. color-ka asna waxaa ka dhigtaa cadaan. maybe cadaan waaba yahay isaga, iyo cadaan waaba yahay, iska dhaaf. may cadaan maaha, cadaan inuu yahaan malinayay. sidoo kale haddaan dhahno margin bottom-na 20 pixel. okay, bt anaa u tagno buttonka. waxaan leenahay buttonka asna waxaan leenahay marka si xoogaa waxaa moodaa si wuxuu u egyahay soo maaha geesahan hareerahan colorkaas haysta taas.
padding baan ku daranaa marka horeysa. waxaan leeyahay let's say 8 pixel 20 pixel xogaa u keero durko. border baan ku daranaa 1 pixel solid color green marka siinayna. sidoo kale background-kan waxaan ka dhignaa green. waxaan ku daranaa sidoo kale color cadaan sidoo kale cursor pointer oo in markii la dul tago gacan camal in noqoto. border radius aan ku daranaa 20 pixel labadaba hadda way wada noqdeen, laakiin anaga waxaan u baahanahay inuu kan u noqdo. font size haddaan ku daro, font sizekiisa 16 pixel. okay. kan kale marka saan u hagaajino waxaan leenahay color isna waxaa haystay glass dot primary. marka intaan aan soo koobiyeyno nooga qaadan kaliya meeshaan ayaan waxaan ku bedelaynaa marka color kale aan ku bedelaynaa. intaan waxaan leenahay transparent. background kana waxaan leenahay transparent. hoosta isaga jiraan si hoosta aan u kala saarno margin. let's say margin 0 and point Tarera. hadda waa iswaafaqeen. colorka aan u tagna marka kan aan u tagna u dambeeya waxaan leeyahay col1 imageka waxaan ka dhiganaa widthka 100%. okay, isku mid waaye. marka intaas ayay nagu eg tahay. waxaan hadda u gudbaynaa qaybteena responsiveka u gudbaynaa. waxaan leeyahay media responsive saan u sameyna aan la socono media screen and max width 900 pixel. saan iskula aragna markaa. okay, kan aan yareyno. hadda isku dhexdhacsan yahay, ma jeedo sidaas isugu dhexdhacsan yahay. don't worry, waan hagaajinaynaa. waxaan soo saaraynaa hadda menuheenna ayaan soo saaraynaa. menu ayaan leenahay. display waxaa ka dhigtaa block mid hadda la arkayo inta kasoo boodaya markaas. sidoo kale menu waxaan leenahay ayaan wax yar hagaajinaynaa. waxaan leenahay font sizeka waxaad ka dhigtaa 20 pixel oo yaro weyne. okay, maybe 24. okay, 20 aan iska dhaafno. okay, waxaan u tegaynaa marka listigaan u tegaynaa. waxaan leenahay nav link hagaajina nav linkigan. position baan leenahay fixed hoosta iska soo wada geliyaan. sidoo kale top baan waxaan leenahay 0. left sidoo kale 0 aan ka dhignaa oo qaybtan in xaggan usoo durkaan baan rabnaa. sidoo kale widthka waxaan ku daranaa 40% height baan ku daranaa 100 view height. marka si hadda aan iskula aragno marka meesha aan marayo background aan ku darno. taanana background red. okay, display baan leenahay sidoo kale block. awalko jiifaan kuwa tagtaan ka dhig. okay, sidoo kale z index aan ku daranaa 11. z index micnaheedu waxa waaye markii hadhow contacteeda arkay inuu uu maad kasoo muuqan karo. okay, sidoo kale waxaan ku daranaa transform
transform translate x ayaan leenahay. marka hadda waxaan rabnaa yani hadhow markii kan lagu dhufto, hadda waxaan rabnaa markii la yareeyo inaan la arkin, just markii kan lagu dhufto in uu soo boodo. marka taasaan u sameyno. haddaan dhaho 100% yani dhexu tagayaa laakiin haddaan minus dhaho meesha dhan ka baxayaa oo dhinacan laftiga ayuu aad u aadayaa marka oo minus xaggan ah. marka taasaan kaga faa'iideysanaynaa. hadhowna waxaan rabnaa checkbox ahaan, hadda waxma soo baxayaan laakiin hadhow checkbox ahaan inaan kaga faa'iideysano oo markii aan ku dhufano uu soo baxo. laakiin hadda aan style garayno weli stylekii waan ku wadnaa. marka hadda aan noo soo baxo navlink ayaan leenahay listiga ku dhex jira. padding waxaan ku daranaa marka dhinac walba 10 pixel si uu kala durdurko. oo kale margin left waxaan leenahay 10 pixel oo xooga inta contactiga ku dhigto. okay ya isku mid waaye. okay marka maxaan sameynaynaa si aan qorno hadda xirno. hadda saasaan leenahay meeshuu ka baxay. waxaan ku tusayaa marka checkbox baan soo qaadanaya. hadda check baan leeyahay display block. okay checkboxkan inta hadda kasoo baxay ujeedaa fiir. marka hadda markaan iconkan ku dhufto check baa saarmanaysa yani checktaas ayaa hadhow noo fududeynaysa yani iconka aan kusoo saaranaynaa yani listigeena ujeeda. markaan ku dhufto check baa saarmanaysa. marka checktan ayadan maba isticmaalayno, keliya waxaan kaga faa'iideysanaynaa check ahaanteedaan kaga faa'iideysanaynaa. marka waxaan usoo sameeyey inputka. haddaad isla aragno inputka waxaan usoo sameeyey id. marka id la dhaho toggle. haddaan dhaho toggleka marka waxaan leenahay checked ayaan leenahay. markaan checked dhahno aan calaamadan isticmaalaynaa. kadib ayaan waxaan soo qabanaynaa list classkeena navlink oo ah meesha yani ugu dhex jiray listigeeni. kadib ayaan waxaa leenahay transform oo tan ah translate x 0. okay let's check. waa kan soo baday ujeedaa. sababtaa waxaan yidhi toggleka checked markii la dhaho navlinkigana yani transformka waxaa ka dhigta translate 0 mid la arki karo oo soo bixi camal. okay waxaan ku daranaa marka transition aan ku daranaa xooga all 0.5 second. okay yeah okay headerka aan u tagno qaybtan kale aan u tagno headerka marka meeshan ah transparentiga ah hadda waxaan gelinaynaa dan intaan aan soo copy garayno kini intaan aan kaga baahanahay haddaan soo copy garay intaan hadda kadibna aan dhaho meeshaan transparentiga haddaan dhaho marka aan geliyo RGB color aan geliyo RGB 0.0.03 shan madow bay noqonaysaa. okay transparent hadda ka qaadanaa. sidoo kale mainkeeni oo ay ku dhex jiraan labadaba danana with ka dhigna 100%. markii hore 80% uu ahaa. flex direction haddaan dhahno color kuwa social ha noqdaan. sidoo kale callka haddaan dhahno flex spaces 100%.
kale haddaan kana ku darno let's say widthka 100% taasna okay. Okay, marka hadda waxaa arkaysaa yani uu isku mid noo noqday qaybtan responsiveka, yani hadda waa isku mid oo responsive ahaan hadda markii aan fiirinayno saas ayuu nagu soo baxayaa websitekeena. Responsive micnaheedu waxa waaye yani markii yani websitekaaga la yareeyo shaashadiisa in la arki karo. Maybe labadan tana aada u yar 25 yes okay. marka projectka intaan ku eegay insha Allah project xiga ayaan isla arki doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.